بسم الله الرحمن الرحيم waxaan doonayaa maanta inaan warbaahinta la wadaago dhowr laba arrimood oo ku saabsan degmada Lughaya iyo dad laga soo xidhay gobolka Awdal oo isugu jira odayaal waxgarad iyo dhalinyaro degmada Lughaya barigeeda maalmihii u dambeeyay waxa ka taagnaa arrimo aad u foolxun oo la maleeyay taasoo noqon karta dambas hoosta ka horaya haddii si degdeg ah wax looga qaban waayo waxa xaraan cad ah oo aanu dhagahayaga ayna qaadi karin in gobol ku fido gobol kale sidoo kale waxa ay xaraan cad ah in gobol badiisi gobol noqotay gobolka Awdal bad looga qaado waxa xaraan cad ah oo nidaamka dawladnimo aan meel ka soo galin illa curyaamiyo wax soo saarka dalka dib u dhac dhaqaale loo horseedo bulshada taas oo maalmihii u dambeeyay dad fara badan oo xoolihii ka fara baxeen oo ku foorarsaday dhulkooda degmada Lughaya laga hor joogsaday beeri ay tabciyeen waxaanu xukuumadda ku eedeynaynaa iyadoo shalay kaga ololeysatay bulshada inay wax soo saarka dhulka xoojin doonto maantana waxa nasiib darro in xukuumadda kulbiye ka hor joogsato ummadda dhulka ku foorarsatay ee dhulka tabciisay si ay wax wala soo baxaan noloshooda ugu maareeyaan xukuumaddu uma hayso dadkan waxay ku maareyso noloshooda xoolihii way ka fara baxeen waxay noloshooda iyo mustaqbalka ubadkooda ku dabartaan ma hayaan adaatay maanta oo ay dhulka ku foorarsadeen wax laga xumaado noqotay in xukuumadda ka hor istaagto beerihi ay ku foorarsadeen dad fara badan iyo uqaal iyo waxqaradkii haldoorka ahaa halka ku noolaana xabsiga loo taxaabo oo iyadoo aan gobolkoogii lagu soo xidhin magaalo madaxda caasimadda ee Somaliland loo gudbiyo si degdeg ah intuu halkaas si sharci darro looga qaado gobol kale lagu xidho sidaa darteed wax la aqbali kara maaha in degmada Lughaya maamulkeeda iyo gobolka ay ka tirsan tahay mar la geliyo waxaanu qaadan karna maaha Lughaya saddex barasaab leh haddii ay xukuumadda iyo madaxweynaha ay ka suurta gashay in Lughaya saddex barasaab ka arrimiyaan dalkana saddex madaxweynaha la inoogu sameeyo marnaba aqbali mayno in Lughaya mar la geliyo waanu ku adkaynaynaa halka odayada iyo waxgaradka lagu soo xidhay arrimaha deegaankaasi ee aan hore u soo xusay waxaanu u sheegaynaa xukuumadda in si shuruud la'aan lagu soo daayo odayada wax dambi ma galin dadkaasi dambi ma ilahayn waxay ku foorarsadeen markii ay xooluhu ka fara baxeen deegaankoogii bay ku foorarsadeen dhul bay tabcayeen halkaas ay noloshooda u maareeyaan iyo mustaqbalka ubadadooda iyo ku foorarsadeen ciidii u soo hadhay maadaama ay xoolo ka dhamaadeen waa xaraan waagaf iyo gardarro xukuumadeed waxa odayada lagu soo xidhay loo hor joogsaday mustaqbalkooga loo hor joogsaday horumarkii dalka loo hor joogsaday horumarkii wadanka waxaanu leenahay haddii shalay xukuumadda kulmiye haddii ay dhagax beena dhigtay degmada Lughaya oo dekad beena oo ay dhagax ku sawir ku gashay maantana in beerahoogii oo ay ku ciidii oo ay ku foorarsadeen la yiraahdo waxba kama qabsan kartaan waxaanu aragnaa gardarro xukuumadeed xukuumadda kulmiyana ayaa arrinta dhabarka u qaadan doonta mas'uuliyadeedana waxa la wixii ka yimaada iyada qaadan doonta waxaanu ka digaynaa oo aanu arabka ku adkaynaynaa maabka khaldan ee loo isticmaalo gobolka ee badiisi qayb looga qaaraamay gobol kale aad baan uga digaynaa arrinta waxaanu ummadda u iftiiminaynaa in khariirada gobolka Awdal ay ahayd khariiradii hore ee saxda ahayd ee shanta gobol ee hore ay ahayd maanta oo la joogo in gobol kale gobolka Awdal bad looga qaaraamay waa wax dalka nabar ku ah dawladnimadeena curyaaminaysa dibna u dhagaysa shacabka ku naalooda nabadda haysta ee 30 sano nabadda ah ugu dambayn waxaan iyana doonayaa inaan ka hadlo hablaha iyo dhalinyarada yaryar ee gobolka laga soo xidhay ee muddo 20 maalmood ku dhow ku kala jira jeelasha Gabiley iyo Madheera waxaan doonayaa inaan aad uga hadlo hablaha cawradaha ah ee Boorama laga soo xidhay ee Gabiley ku xidhan ee dhowr iyo 30 ah
iyagoo bilaa muxrama intoo magaalo laga qaaday magaalo kale la geeyay waxaasi wax diin iyo dhaqan Soomaaliyeed ku lug leh ma aha wax ka baxsan weey waxaan doonaynaa in xukuumaddu dadkayga iyo shacabkayga hoos u eegto aanay colaad iyo propaganda hurin awlaada yaryar iyo caruurta halka laga qaaday ee magaalooyinka kale la geeyay iyo waalidiintoodii oo dhibban oo ay la kala ambiyay in la isku soo celiyo xuriyadoodii loo soo celiyo waxaan fariin u dirayaa shacabka reer awdal waxaan leeyahay war waxa in sida la yeelo oo habla yaryar oo awrada intoo magaalo kale laga qaado magaalooyin kale la geeyo waxyaabaha noocaas ee daawanaysaan ma wax sax idinku ah oo dadnimadiina sax ku ah xukuumadda kula socotaanba mise waa wax damiirkiina iyo dadnimadiina aan sharaf u hayn oo meel ka dhax ku sameynaya waxaan leeyahay xukuumaddu dadka hoos u eegta shacabkana ay xidhaysa ee ay wax soo saarka iyo agajugleynta ay ku haysaa waa shacabkii soo doortay waa shacabkii Soomaaliland darnimada keenay waa shacabkii calanka tolay way shacabkan cisho walba la guraya ee cisho walba gobolkan meel ka baxsan xabsi ahaan loo geynayay waa shacabka xukuumadda shacabkayga hoos u eegto dadkeygana ha ka warhayso ummadan xidhxidhan ee ay iska qafaalatayna xorriyadooda ay u socodso waxaan leenahay xukuumadda gobolku xabsi u leeyahay maxkamadu leeyahay garsoor baa ka shaqeeya haddii hal in qof muwaadin oo gobolkiisa laga qabtay aydan ogoleyn in gobolkiisa lagu xiro gobolka wadanka ku yaala wahalkii ma gobol gaara ma wadan gaar ku yaala awdalo qof laga qafaalisho dawlad kala qaadatayba halka xukuumadda noo cadayso waan dhaleelsanahay gobolku ugu jeelal buulay maxkamadu leeyahay garsoor baa ka shaqeeya garsoorkiisa iyo jeelashiisa hadii aanay Soomaaliland ku kalsoonayn waxay noo cadaynaysaa in aanan Soomaaliland ka tirsanayn waxay noo cadaynaysaa in aanan Soomaaliland ka tirsanayn oo dadkii Soomaaliland dhisay ee dhigeega lahaa aanan qayb ka ahayn